intaan ciddaa rabto soo weydii boqolkiiba 60 dadka forex bartay waa inta bartay cilmigii oonan suuqana ku jira aanan trade gareynin waa boqolkiiba 60 waa ay u trade gareynaynin waa su-aal meesha ku jirto dadkaas waxbay barteen istaraatiiji u shaqaysay arkeen macnaha waxyaalo badan qofka bigina uu garanaynin bay garanayaan laakiin traders ma dadkaas maybe inay shaashadooda soo sawiraan maybe waxyaala badan inay soo gudbiyaan maybe hebel macnaha sawir uu soo dhigay inay sii sheegareeyaan video macnaha motivation ka sheekeynaya soo sheegareeyaan ay u badan yihiin sababta arrintaas keenaysana waxay tahay suuqan waxaa weeye kalsoonida suuqa lagu galaa iyo aad u hooseysa kalsoonida waxaa weeye qof walba kalsoonidiisa way hooseysaa qofkii wax shaqeynayo arkay kadib macnaha qalbigiisa kama dhaadhacsano meeshan waad ka shaqaysiin kartaa lacag baa ka samayn kartaa kama dhaadhacsano wuxuu isleeyahay amaad ku khasaartaa macnaha maskaxdiisaba kama dhaadhacsano waxaan inay tahay actual business inay tahay maskaxdiisa kama dhaadhacsano waad khasaaraysaa ka dhaadhacsan businesskana mar walbo khasaaro iyo faa'iido leeyahay forexna lama sii jirto waa suuq adduun weynahaas gees ka jiro manipulationkiisa uu wato waxyaalo badan ay ka jiraan meeshaas marka suuqa noocaas waxaa u baahan tahay mar walba adiga inaad la soo gashid mentality saxan oo dhihi karta alla yidhaha aniga suuqa waxaan ka helaan qaadanaya no over trading no under trading waxaan xasuustaa yar iiga sheekeynaya asaga inuusan trade gareynin oo micnaha walaa reality iiga sheekay wuxuu yidhi aniga tradeka wuxuu yidhi inta analyze gareeyo yaan wax dhan hagaajin karaa wuu yidhi laakiin ma gala yidhi tradekaas ma geli karo waayo iskuma kalsooni yidhi waa reality wuxuu kaloo ii sheegay yar kale asagana oo sidaas saaxiibo ahayn oo la mid ahaa oo yidhi niyow rag baan ku xirana inuu ku xirnaa markaas uu ii sheegay ameynayaa I think adkow inuu yahaa ameynaha calwaash miya something like that yarkaas yuu ku xirnaa marka wuxuu yidhi yarkaasa minaha signalkiisi wixiisa iyo meeshuu soo dhigay groupisan ku jiray markii aan tradeka ninkaas la analyze gareey oo soo dhigan qaadan rabo ama kii aan analyze gareeyey ninkaas kiisa aan ku compare gareeyo macnaha aan exact aan helo yaa waxaan arkaa yidhi macallimu waxa ka hadlaya marka ma fahan macallimu oo zoom ku jiro hadlaya arkaya trade ninka maba qaadanayo banaankiisa tradeka oo tradeka waa analyze gareysay waad noo kalsoonaatay qof xataa la kaashatay kalsoonida xoogaha way soo korortay mad qaadad qofka ma qaadanayo dhibka jira waa intaas dadka meel u badan yihiin caynkaas wey ninka maanta micnaha xoogaha hamigiisa ku taagan yahay intuu challenge qaato laga yaaba challenge-gii dee akaya micnaha kambaniyasha meel u badan yihiinna micnaha in success aad noqoto ma dhisna inay lacag kaa sameeyaan rabaana xoogaa markay sawirarka kugu kordhiyaan ama sleepage wax allah kugu sameeyaan ama something kugu soo dallacaan yaad niyadjabaysa haddana mar labaad suuq bannaanka istaagaysaa war suuqa yaan bannaanka laga istaagina waxaa laisku diyaarsado analysis paralysis waxa la lahaa jiro qofka waxaa arkaysa information raadinaya maalin walba wuxuu ku leeyahay warbixin baa raadinaya war meeqa sana warbixin suuqa raadinaysaa suuqan waa in analyze garaysid waa in emotionkaada soo dhisid waa in micnaha lacag deg deg samee aysan kugu taagnayn technical analysis hadduu kuu saxan yahay inta kalena ay kaa saxanta emotionkaada control kartid tradeka ha ka cabsanin gal meesha ka gashid tb meeshaad micnaha aad testing ku samaysay everything hadduu micnaha barnaamij kuu shaqeynaya istaraatiiji ay shaqeynayso waad soo ogaatay demo trading kusoo ogaatay kalsoonidaada aad ku qabtid tb dhig isagloos dhigo haddaa khasaartid who cares ka soco haddaa faa'iidid who cares kasii soco weli soo moogid marka waa in maskaxaada ay ka dhaadhacsan tahay war aniga haddaan faa'iid anaa faa'iiday haddaan khasaaray anigaa khasaaray qof kugula xisaabtamaya ma laha adiga laga raba mustaqbalkaada ma dhisan kartaa saas haddaad yeeli kartid hore u soconaysaa haddaad yeeli karin buugii qalin qaada dib u noqo dhibka ugu badan wuxuu yahay qofka cilmi waa yaqaanaa oo hadda mar labaad cilmiga inuu barto diyaaru maaha soo moogid dhibka ugu daran waxaa weeye qofka he don't want to unlearn ninkaa cilmiga bartay cilmiga kuma shaqaysanayo hadda mar labaad duu cilmiga baran lahaa duu bu yaqaanaa muxuu baran cilmiga waaba yaqaanaa barasho waa kuma baahan waa already cilmiga waqti ku bixi wuu bartay laakiinse gudaha hoose micnaha yaysan jirin maqli jirtay geesinimada waa 2 daqiiqo micnaha lagu sii haayo taftiran arrintan meesha jirin waayo qofka micnaha qalbiguuna ka deganeen trade ma qaadan karo marka waxaan rajeynayaa in micnaha pointigan haddii
qof aad garanaysid arrinta haysato waxaad dhahdaa bes isku day account demo furo. Account demo sida real oo la dhaqan waa micnaha qaabka ugu sahlan aan ku dhihi karo ka bilow. Accountka demos waxaa loo dhaqmaa sida real traderka u gambinin every signal heshid qaado after 3 months to 6 months meel uu gaaro arag. Marka inta samaysid wixii ka dambeeyo dad account challenge qaadanaysid haddii lacagtaada aad meesha gashanaysid labadaba adaa doorka iska leh. kadib markaas sida demo oo la dhaqmato oo dhaqan ha ka bedelin waxba nothing, don't change anything. tabti demo oo la dhaqmatay kana oo la dhaqan waxaan hubaa insha allahu tacaala waan ku kalsoonahay in resultiga demo ku heshay micnaha ka demo lagu talagelinayo no emotion, you don't care. haddii tabtaas inta oo la dhaqmatay wallahi waxaan hubaa in resultiga demo aad ku heshay mid ka agdhow ama ka fiican in aad reelka ku heli doontid. taas samee iguna soo warceli aniga. ha jawaab sax ku siina markaas. Assalaamu calaykum.